door wanaagsan dadkana dhageysanaya ku soo dhawaada warka duhur idaacada Kismaayo codka Jubbaland qodobada warka duhur kuwada ugu waaweyn oo halkan idinku soo gudbin doonana waxa kamid ah maamulka degmada Afmadow oo goob waxbarasho ka dhagax dhigay degmadaasi midowga musharaxiinta mucaaradka oo madaxweynaha Soomaaliya oo markaa ka hadlay ergeyga cusub ee midowga Afrika Soomaaliya loo soo magacaabay hooyo iyo caruurteeda oo ku dhintay darbi ku soo dumay fanaanad caan ahayd oo maanta ku geeriyootay magaalada Muqdisho shir lagu heshiisinayo beelo dagaalamay oo beledweyne goordhow ka furmay ciidamada dawladda Soomaaliya oo deegaano hor leh la wareegay akhbaraadka dibadda kuwada ugu waaweyn waxa kamid ah dad badan oo ku dhaawacmay rabshado ka dhacay magaalada Qudus oo ciidamada Israa'iil ay ka wadaan halkaasi daandaansi dagaal وكما warwageedii maxaa u dambeeyay siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba radio Kismaayo ka dhageyso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan isku soo noqod wanaagsan dadkana dhageysanayo waa axad taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 9ka bisha shanaad ee May sanadka 2021 qodobadaasi waxay hayeen qodobadii warka duhur ugu waaweynaa haatanna waxaad ku soo dhawaataan iyaga intaas ka faahfaahsan duhurnimadana waxa idin waramaya anigoo Cabdilmajiid Cabbaas aadana fantastic hadii aan ku hormaro qodobka ugu horeeya ee warka duhur maamulka degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ayaa goob waxbarasho ka dhagax dhigay degmadaasi Raaxo Maxamed Cabdi hayno faahfaahiso qodobkan gudoomiyaha degmada Afmadow ee Jubbada Hoose Maxamed Aamin ayaa raadiyo Kismaayo uga warbixiyay dadka ku nool xaafadda dan wanaag oo laga hirgeliyay iskuul cusub oo ay wax ku baranayaan caruurta xaafadaas ku nool gudoomiyaha Afmadow ayaa sheegay in xilliga roobka ay caruurta degan xaafadda dan wanaag dib ay ku qabaan in ay aadaan iskuulka kale ee ku yaala xaafadaha kale ee degmada ay waxbarashada u aadaan maadaama magaalada Afmadow dhexmarto lugtaas oo kala xidha xaafadaha kala duwan Maxamed Aamin ayaa sheegay in iskuulka marka la dhameeyo ay dhibaato ku qabaan ardayda xaafadda dan wanaag ay ka bixi doonaan dan wanaag waa xaafad balaaran oo dawladeeda dawladii hore ka weyn jirtay xaafad cusub maaha caruurta waxay iskuulka hadda Afmadow ee magaalada yimaadaan laakiin maxaa dhaca oo dan wanaag waxa soo dultagay barakacyaal ka badan oo gasho ka yimid xagga Bu'aale iyo xagga Jilib ilmaha waxa iskuul dhigto haddii aan kala bar inta badan waxa iskuul ma dhigtaan baan dhihi karaa duruufo badan oo awgeed kuwa dhigtana markay lagtan biyo keento waa ku adkaanaysa inay lagta soo gudbaan oo laash iyo wax looga soo gudbo labada magaalada iyo dan wadaag waa kala go'ayaan waa isla buundadaas oo loo baahan mar walba waa buundo weyn in meesha laga helo si taqana ay u hesho ilmaha bay noqonayso ama hooyada dhallaanka wadato isbitaal doonayso isbitaalkii iskuulaadkii labadaba waxay ku yeelaan magaalada bartamaheeda marka iyagana waa goodoon lagta ka sokaysa biyahaas lagta biyo keentana waxa weeyaan laashka waxaa lagu soo raacayaa dollar iyo ka badan dadka meesha degana waa dan yar ma awoodaan canugu marka iskuul la-aan baa ku dhacaysa inta hadda iskuul la-aanta ay joogtaan hadda iskuulka dhigatana markaa waxay noqonaysaa inay sii nusqaamaan marka dibkaas awalba ka jiray hadday iskuul ayagoo gudoomiyaha deegaanka waa gudoomiyaha degmada Afmadow ayuu ahaa codkaasi dhageystayaal warbixintii raaxo ayay u dambeysay xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka madaxweynaha ayaa soo dhaweeyay ergeyga gaarka ee midowga Afrika u soo magacaabeen Soomaaliya kaasi oo lagu magacaabo John Dramani Mahama isla markaana ah madaxweynihii hore ee dalka Ghana qoraal ka soo baxay midowga musharaxiinta ayaa waxa lagu sheegay inay u mahad celinayaan midowga Afrika dadaalada ay wadaan dhismaha nabadeed ee ka socda guud ahaan dalka kaasi oo midowga Afrika uu taageerayo waxaan markaa ugu mahad celinayaa midowga Afrika taageerada joogtada ah ee ay siiyaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadaalada dhismaha nabadeed ee ka socda guud ahaan dalka waxaan markaa ku rajaweynahay in ergeyga cusub uu markaa si dhaqso leh oo dhab leh ula macaamili doono dhammaan danayaasha arrimaha siyaasadeed ee Soomaaliya waxaana markaasi rajo ka qabnaa in uu ka shaqeeyo kala guurka habsama u socodka iyo waliba dhaqangelinta heshiiska 17 September ayaa lagu yiri qoraalka midowga musharaxiinta mucaaradka sidoo kale midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa waxa ay markaasi sheegeen
inay markaas si aada u soo dhaweynayaan magacaabidda ergeygaasi balse ay sheegeen in xilligan loo baahan yahay in dhinacyadu isku soo dhaweeyo qoraalka midowda musharaxiinta oo ku qoran luqadda afka qalaad ee Englishka ayaa waxa eedan lagu jeediyay la taliye sare ee siyaasadda kooxda dhexdhexaadinta midowda Afrika waxaana midowda Afrika ay dalbadeen in dib u eegis ay ku sameeyaan mas'uulka warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay darbi ku soo dumay qoys barakacyaal oo ku noolaa deegaanka Garis Valley ee koonfurta magaalada Muqdisho qoyska oo ka koobnaa hooyo iyo 5 caruur ah ayaa waxa markaa kadib markii uu ku soo dumay darbi weyn oo ay markaa ay ka soo hoos dhisteen guri cooshada ah ka sameysnaa dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in hooyada iyo caruurteeda iyo cunuga kale ee la joogay uu darbiga ku fariistay oo halkaasi ay ku geeriyoodeen guud ahaanba iyadoona gurmadka loo fidiyay aan lagu guuleysan in la badbaadiyo sidoo kale dadka deegaanka ayaa noo sheegay in ugu yaraan 4 qof oo kale ay daris la ahaa reerkan ay dhaawac markaa ka soo gaareen darbiga dumay allaha u naxariistay waxaa maanta magaalada Muqdisho ee caasimada dalka ku geeriyootay fanaanada Amuno Daahir munaxidinta loo yaqaan sida uu warbaahinta dawladda u xaqiijiyay Abwaan Cabdulqaadir Cabdi Shube mareeyaha golaha murtida iyo madadaalada Abwaan Cabdulqaadir Cabdi Shube ayaa sheegay in fanaanada munaxidinta uu habeen hore markaa ku soo booday xanuun isla markaana xanuun hayay ay markaa aroornimadii hore ee saaka u geeriyootay fanaanada munaxidinta ayaa ka tirsanayd hobalada waa beri ee Puntland iyadoo markii dambena u soo wareegtay dhinaca magaalada Muqdisho sidaasna uga mid noqotay hobalada waa beri ee magaalada Muqdisho baraha bulshada ayaa waxa ay markaa hareysay tacsida loo dirayo fanaanada Amuno Daahir munaxidinta qoyskeeda waxaana markaa fanaaniin fara badan ay si gaar ah tacsi ugu direen ehelada marxuumada iyo shacabka ay ka dhimatay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa markaa ka furmay wajiga koowaad ee shirka dib u heshiisiinta beelihii dhawaan ku dagaalamay deegaanada waqooyi galbeed ee Beledweyne ee gobolka Hiiraan shirka ayaa waxa goobjoog ah maamulka gobolka Hiiraan xildhibaano ka tirsan dawlad goboleedka Hirshabelle qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka labada beelood iyo qaybaha kala duwan ee bulshada wajiga koowaad ee shirka maanta ayaa waxa markaa looga dhageysanayay labada dhinac wixii sababay colaadda labada beeled gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda gobolka Hiiraan Abuukar Cabdullaahi Maadey iyo shirka furay ayaa sheegay in maamulka gobolka Hiiraan ay ka go'an tahay in uu heshiis nabadeed kala dhaxdhigo labada beelood ee dagaalamay sidoo kale waxa uu markaa ku baaqay odayaasha dhaqanka labada dhinac inay markaasi dardargeliyaan howlaha nabadeynta si bulshada ku nool deegaanada waqooyi galbeed ee magaalada Beledweyne si nabad ah ay uga wada noolaadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa saacadihii la soo dhaafayna waxa ay howlgallo kala duwan ay ka sameeyeen deegaanada hoostaga degmada Awdhegle ee gobolka Shabeellaha Hoose halkaasi oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab howlgalka ayaa ciidamadu waxa ay si gaar ah uga fuliyeen deegaanada Shaam Garre Baqaley Raydabley aan raahday Gololey iyo Caanooley iyo Gumaysidiid kuwaasi oo dhammaantood hoostaga deegaanka Bariire ee degmada Awdhegle ee gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan taliyaha ururka gaarka ee ka tirsan xoogga dalka Xidigle Cabdullaahi Mustafa Maadale Qaran ayaa markaasi sheegay in ciidamada kooxda Al-Shabaab ay kala wareegeen dhammaan deegaanada Shabeellaha Hoose oo ay howlgalku ka sameeyeen waxa uu hadalkiisa inta ku daray in ay khasaare xooggan ay gaarsiiyeen kooxda Al-Shabaab howlgalka sidoo kalena ay sii wadi doonaan ilaa iyo inta ay markaa ka xaqiijinayaan amniga deegaanada hoostaga degmada Awdhegle ee gobolka Shabeellaha Hoose degmada Awdhegle ee gobolka Shabeellaha Hoose dhowr jeer oo markaa waxa ay howlgallo kala duwan ka sameeyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana howlgallada ay ka sameeyeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose waxaana mararka qaar ay weeraro kala kulmaan kooxda Al-Shabaab halkaad warkaasi kala socotaana waa idaacadda Radio Kismaayo codka dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland gorow waxaynu guda gali doonaa akhbaaraadka dibadda balse markan ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee warka duhur iyo Cabdirasaaq hayno soo koobo dhegeystayaal kulanti waxaana wanaagsan idila hantiiba dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka aan ku bilaabay kooxda kubadda cagta Juventus ayaa caawa kulan ka tirsan Serie-A dalka Talyaaniga kusoo dhaweynaysa naadiga AC Milan kulan ka tirsan Serie-A
kooxda kubadda cagta Juventus ayaa kulanka caawa doonaysa in guul qurux badan ay kasoo gaarto iyadoona AC Milan qudheeda ay doonaysa in kulanka ay guul ka gaarto xubinta ciyaaraha warka waa naginta aan dib idinku celiyo fantastic iyo qeybaha warka ka dhiman cabdirasaaq aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo inoo soo koobiyo xubinta ciyaaraha ee warka duhur markana haddii aynu fiirino faahfaahinta qodobka dibadda rabshado horle ayaa maanta ka dhacay magaalada quduskaasi oo u dhexeeya booliska Israa'iil iyo shacab Falastiiniyiin ahi rabshadaha u dambeeyay ayaa waxa ay markaa ku dhaawacmay tiro dad ahi dibadbaxyaasha ayaa dhagxaan ku gooyay afaafka hore ee saldhig boolis oo ku yaala Qudus halkaasi oo ay booliska Israa'iil ay markaa ku ridayeen rasaas anjir ahi iyo waliba bam gacmeedyo saraakiisha caafimaadka ee Falastiin waxa ay markaasi sheegeen in ugu yaraan 9 qof oo Falastiiniyiin ahi ku dhaawacmeen rabshadaha halka booliska Israa'iilna ay sheegeen in markaasi sargaal uu kaga dhaawacmay qalalaasahan u dambeeyay ee ka dhacay Qudus in ka badan 200 oo Falastiiniyiin ahi oo 17 sargaal oo Israa'iil ah ayaa markaasi lagu dhaawacay isku dhacyo shalay ka dhacay magaalada Qudus sida ay sheegeen dhaqaatiirta Falastiiniyiinta iyo booliska Israa'iil waxaa sii kordhaya qalalaasaha oo markii hore ka dhashay qoysas Falastiiniyiin ah oo laga saaray xaafado ay deganayeen oo daris la ah masjidka barakeysan ee Qudus gudahan warkii duhur aad kala socoteen idaacadda Kismaayo codka Jubbaland duhurnimada waa naga intaa tan iyo kulankayga dambe nabadgelyo